بسم الله الرحمن الرحيم maantay oo ay taariikhdu tahay 12ka bisha Abriil 2022 guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ba waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan aasaaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo wareegatay 62 guurada aan u dabaaldegayno maantay runtii maantay waa maalin aad iyo aad loogu weyn waa maalin ku weyn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa maalin ku weyn dhammaan bulshada Soomaaliyeed waa maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii aan ognahay in ay yihiin haliyaayo u bixiyay naftooda iyo maalkoodaba u bixiyay difaaca iyo badbaadinta qarannimadooda ilaalinta sharafka iyo karaamada ee muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed darajo kasto ay leeyihiin hambalyo waxaan u rajaynayaa guul iyo caafimaad waxaan u rajaynayaa Ilaahay idankiis in ay ku guuleystaan farxad iyo muxuu ahaa ii sheegay horumarna ay ka gaaraan hadaafta iyo muxuu ahaa ii sheegay aragtiyaha ay hilgalinayaan ee ay kula dagaalamayaan argagixisada dhiig miiratada ah ee dhibaatada ku haysa ummadda Soomaaliyeed ee aan lahayn runtii wax target ah oo gaar ah laakiin uu yahay targetkoodu baabi'inta iyo daadinta dhiigga ee muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo burburinta iyo boobka hantida ee ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay marka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan kula dardaarmaynaa in ay dardar geliyaan awoodoodana ay isugu geeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururada argagixisada ah ugana qaba lahaayeen ummadda Soomaaliyeed taas oo ah wadiiqada kaliya ee aan ku gaari karno horumar iyo barwaaqo iyo amni qof walba muwaadin Soomaali ay ku naalooto aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.